kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah ciidamadii ugu badnaa ee ka soo jeedo beesha Duduble oo ka baxay magaalada Muqdisho sidoo kalena tagay magaalada Dhuusamareeb ee dawlad goboleedka Galmudug si ay qayb uga noqdaan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo arrin la yaab noqotay ku sameeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo Somaliland iyo Puntland ay ka wadaan Boocame iyadoo taliyaha ciidanka difaaca Puntland wafdi uu hogaaminayo dhawaan ay gaareen degmada Boocame ee gobolka Sool. qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino. aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa laga sugootiyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo loo abaabulay hab beeleed kana soo jeedo beesha Duduble iyadoo diyaarad ay ka qaaday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa ciidamadan ka sii sugootiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde kuwaasi oo sheegay in ciidamadan door muhiim ay ka qaadan doonaan dagaalka ka dhanka argagixisada. ciidamadan oo ka soo jeedo beesha Duduble ayaa waxa ay ku sii wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo ay kaga biiri doonaan kacdoonka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo waliba kuwa deegaanka. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamadan si gaar ah ay uga qayb noqon doonaan ciidamo loo diyaariyay howlgal Al-Shabaab looga saarayo degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. waxaa muddooyinkii dambe socday abaabul ballaaran oo beelaha ay uga qayb noqonayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo durbaba dawladda ay ka sheeganayso guulo waaweyn. Al-Shabaab ayaa waxaa kacdoonkan dagaal looga xoreeyay deegaano badan oo gacanta ay ku hayeen sanadihii dambe waxaana weli gobolada dalka ka sii soconaya howlgallada lagu baacsanayo dagaalyahanada kooxdaasi. taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu sameeyay arrin lama filaan ku noqotay dad badan kadib markii uu ka soo hormuuqday munaasabad ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. munaasabadaasi oo dawladda ay kula wareegaysay gargaar ay u soo dirtay dawladda Itoobiya waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin kala duwan sida duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Madaale, wasiirka caafimaadka, wasiirka waxbarashada, wasiirka warfaafinta iyo taliyaha NISA. deeqda ka timid Itoobiya ayaa ahayd kuwo lagu talagalay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Zoobe iyadoo oo sidoo kale ay la socdeen dhakhaatiir looga soo diray Addis Ababa. waxaana gargaarkan wasaaradda caafimaadka ku wareejisay safiirka Itoobiya. wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa u mahadceliyay dawladda Itoobiya sida ay ugu soo jawaabtay dalabka wasaaraddiisa kadibna deeqda ugu soo dirtay. dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn uga falceliyay in taliyaha NISA uu ka soo muuqdo la wareegidda gargaarka Itoobiya. waa kaas madaxii nabad sugidda dalku caawimada tirsanayo ayuu yiri Aadan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada isticmaalo Facebook ee ka falceliyay arrintan. ugu dambeyntiina daawadayaal waxaa dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa degmada Boocame ee gobolka Sool halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan ciidamada Puntland iyo Somaliland. taliska ciidanka daraawiishta Puntland ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay deegaano hoostaga degmada Boocame ee gobolka Sool. Boocame ayaana maalmo ka hor waxaa qabsaday ciidamo taabacsan maamulka Somaliland kuwaasi oo fariisiimo ciidan ka samaystay degmada iyo agagaarkeeda. mas'uuliyiin ay horkacayaan wasiirka duulista hawada Puntland oo ka soo jeedo degmada iyo taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland ayaana gaaray nawaaxiga deegaanka Boocame iyaga oo kulan halkaasi kula qaatay saraakiisha ciidamada Puntland ee ku sugan Boocame. degmada Boocame ayaa ahayd degmada keliya ee gobolka Sool oo gacanta ay ku haysay Puntland waxaana xarumo ku lahaa gudoomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka.
taliyaha ciidanka difaaca Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray agagaarka Boocame iyadoo sidoo kale halkaasi dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan. Taliyaha ayaa eedeyn u jeediyay maamulka Somaliland xilli uu la hadlayay ciidamada waxaana uu halkaasi kaga dhawaaqay go'aanka ciidanka Puntland. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. xildhibaanada golaha wasiirada taliyaha ciidanka hoggaanka ciidanka ee kala duwan taliyaha qaybta madaxda kale ciidamada ciidankaynu halka ugu nimay saraakiishiisa iyo ciidankaba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. taliye halkan waxaynu maanta kula wareegaynaa horeyna aanu anagu ugula wareegnay anagu dawladda Puntland wakiil uga ah ciidankii deegaanka oo xilliyo kala duwan soo galay deegaanka oo 4 bilood ugu dambeeyay galay gacanta Somaliland iyadoo runtii dawlad ahaan iyo mas'uuliyad deegaan ahaan baanu ku talagalsanayn ciidanka in mar hore lala wareego laakiin duruufihii amni nabadayntii aynu wadnay aan rabnay inay dhamaystiranto darteed nimanka cadowga ay uga faa'iideysteen waxaan xoogaal isula nahay nimankaasi waxa ay ciidankan ula wareegeen dalkan inay ku qabsadaan inay dadka dhexdiisa isku laayaan. waxaan markhaati ka nahay saraakiisha ciidanku waa joogtaa intii aanu nabadaynta ku jiray 10 jeer inay amreen ciidankaasi inuu guuro galaba tago laakiin ay ka suuroobi weyday saraakiisha ciidanka haysta iyo ciidanka ay sababta ciidanka maalintii nabadaynta halkaasi aanu salka u dhignay ay Boocame yimaadeen qabiilka muddo hayay laakiin 4 bilood ugu dambeeyay waxay galeen gacanta Somaliland. waxay soo wada waxay gaadheen amar la bixiyo annagoo safar ku imaanay in la yaado deegaanka laga celiyo ma soo gali karaan. saraakiishan aan ku amaanayaa diiday oo xumay 2 baabuur waa maalintii yareeso saamahayn 2 baabuur oo kuwii Somaliland awl u shaqayn jireen. taas waxay muujinaysaa ciidankani duruufo ku yimi iyo baahiya keenay inuu gacan Somaliland galo. markaan saraakiisha wada hadlaynay habeenadii khamiistii ilaa habeen hore anigu waxaan joogay deegaanka Boocame waxa ugu badan saraakiishaas waxay ahayd warhubiya ciidan baanu gacanta ku haynaa Somaliland awal kumaanan maamul ahaan iyo mabda ahaan umaanan aadin laakiin waxa la'aan baan noo geysay maanta mas'uuliyadii waa kugu wareejinaynaa laakiin mas'uuliyadii ciidanka iyo waad qaadaysaa. waxaan u cadeeyay dawladda Puntland haddaanu nahay inaanu diyaar u nahay ciidanka inaanu mas'uuliyadiisa la wareegno. dawladda Puntlandna waliba maanta joogtay oo Dr. Said Abdullahi Deni madaxweynaha ka yahay waa ogtihiin daryeelka ciidanka iyo tababaradooda iyo reformkooda iyo mushaar kordhintooda shaqo badan baa la geliyay. taliye ciidanka halkan fadhiya iyaga iyo saraakiishooda muddadii aan la soo wareegnay wixii xuquuq mushaar ay bishii hore lahaayeen aniga siiyay. gaarigii adeegana shalay baan u keenay oo ana u soo iibiyo way haystaan. waxa allaale wax xuquuq maanta ka maqan tii raashin hadda bilkeeda la dhiibayay shalay wixii ka horeeyay. maanta laga bilaabo waxaan rabnaa mas'uuliyadii ciidankaas inaan gacantaada gelino waa kala shaqayn doonaa saan awalba uga shaqayn jiray. ciidankani waxaan haddana keenay 3 tababarayaal ah oo tababarayaasha guutashanaad tababaraya waa u bilaabeen iyaga hadda ka warbixin doona tababarkii ciidan. waayo ciidan marka uu markii hore reer ahaa la ciidan dawladeynayo wuxuu u baahan yahay in qabiilka laga dhaqo la tababaro ciidan caafimaad qaba laga dhigo tababarkii ciidannimada si uu ciidan dalkiisa dadkiisa ku filaan kara u yahay. ciidan oo xoogaal baad ka tihiin maalintii aynu soo wareegnay habeenkan aanu garow aaday habeenkii ka horeeyay halkan aan idin la seexday. waxaan idin ballan qaadnay wax xuquuqaad leedihiin inaysan maqnaan doonin sida aanu idin dhex saxanayna inaan insha Allah tacaala idin ka warhayn doono. maanta madaxdii ciidanka Puntland xukuntay baa joogta. maalintii halka aad timaadeen Somaliland waa cadhooto waxay timi Boocame uma imaan inay qabsato ma qabsan karto waa ku dagaalamaynaa. saraakiishu maalintii way la soo hadashay taliye waxay yiraahdeen haddii rasaas nagu filan haysano waa la diriri lahayn laakiin waxay u yimaadeen inay propaganda sameeyaan inay Boocame yimaadeen oo qabsan. haddana 3 baabuure ka haray ee dhulbaante kuwii horena way iska saaray iyagana way iska saari doonaa. ciidanku magaalada 3-4 kilomitir buu jiraa magaaladiisa buu joogaa. dugsigii weynaa ee tababarka gacanteenu ku haynaa waxaan geynay 30 ciidan haddana ku 30 kala 20 kala lagu kabay. saldhiggii boolisku waa shaqaynaya xarumii dawladdu waa shaqaynayaan
ciidankana sida loola wareegay wuxuu ka qayb qaadan doonaa difaaca insha Allah deegaanka Somaliland waxa ugu badan ay bacma ka rabtay waxay ahayd colaad yar halka ka dhacday inay ka faa'iideysto oo dadkan walaalaha eelka ay isku gubto 10 jeer haday amreen inay guuraan taliya cali amradii la isku rarayay ujeedada laga lahaa waxay dadkeena gudihiisa la isku laayay sama taas la rabaa haddana inaad ka hortagtaan waxaan hadda ka warhaynaa laftigeeda inay rabaan inay dooxata diraan oo ay deegaanka dagaal ka qarxiyaan si dadkan qabiil loogu celiyo insha Allah taala dadkan hal cadow buu leeyahay waa dad Soomaaliyeed inagu cadow ma nihin laakiin waxba ka khaldamay dhulkeenii si khaldan bay intii badnayd ku qabsadeen inta hadheena waa ka difaacinaa inta ay haystaan insha Allah dawladdu istiraatiijiyad qorshe kale leedahay idinka wax gaar ah kama saareen insha Allah dawladda qorshe kale laakiin ciidankani wuxuu ka qayb qaadan doonaa difaaca deegaanka saraakiishiisa iyo madaxda ciidanka timashir gaar ay gali doonaan wixii baahiyo ciidanku qabaa la dabooli doonaa ciidankuna wuxuu maanta laga bilaabo la xuquuq yahay xuquuqda ciidanka Puntland bisha November mushaarkiisa uu heli doonaa maanta wax xuquuqeedii kama maqna waxaan u malaynayaa doodayada ugu badnayd waxay 3 bari uga dhinaa mushaarkii Somaliland waxaan leeyahay mushaar la sugumaysaan baan leeyahay hal bari baa uga dhinay halkii bari aan la sugno waa diinayo waxaan u malaynayaa ma saraakiishu wixii ficnaa qaadan jira waa siinay waxba iskuma lihin gaariga adeega way haystaan insha Allah taala maantana madaxdiina bay hor tuman maanta laga bilaabo ciidan dawladda Puntland baa tihiin waxaad la xuquuqtay ciidanka waxaad qaadan doontaan wixii amaamiir ciidanku qaato intana waa ka qurux badnaan doontaan drays tababaro darajo dawladnimadu wax sahlan maaha waxay isu bedeli doontaan ciidan qurux badan oo darajo leh oo xuquuq leh oo hadduu dhinto xaqiisa la bixiyo waxaynu kulligan difaaci doonaa dawladnimadeena iyo dalkeena insha Allah taala hadalka idinku badin maayo insha Allah taala dawladdu si dhamaystiran bay ciidanka si gaar ah isaga xilsaari doonta wali waxaan rabaa fariinaan madaxweynaha gaar uga wado oo markii horena go'aankiisa aan ciidankan kula wareegay ciidankan dawladda Puntland si gaar ah xuquuqdiisa u ilaalin doonta oo loo wanaajin doona insha Allah wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo